kulanti wacan oo wanaagsan maanta waxa weeyaan barnaamij aynu kaga hadlayno urur goboleedka IGAD kaasoo ka jira bariga Geeska Afrika. Urur goboleedkan IGAD ayaa waxa ku mideysan 9 wadan. Urur goboleedka IGAD ayaa waxa la aasaasay sanadii 1968 waxaana lagu aasaasay dalka Djibouti. Xarunta ururka ayaa waxa loo aasaasay inuu ka shaqeeyo horumarka wadamada ku yaala Geeska Afrika ee la magac baxay ururka IGAD. Waxa kale oo loo aasaasay deegaanka ilaalinta nabadgelyada. ururkan ayaa waxa caqabad ku ah wadamada ku mideysan oo qaar ka mid ah colaad aad u gaamurtay ka dhaxaysa sida wadamada Itoobiya, Eritrea, Itoobiya iyo Soomaaliya, Suudaan iyo Itoobiya. Wadamadan ayaa qaar intooda badan colaadi soo dhaxmartay waxa xaruntiisa guud ku taala urur goboleedka IGAD waa dalka Djibouti oo lagu aasaasay sanadii 1986. ururkan ayaa mid ka hortaga rabshadaha iyo dagaalada ka horma gobolka. ururkan ayaa waxa aasaasay wadamadii ugu horeeyay Djibouti, Soomaaliya iyo Itoobiya oo waqtiga dawladihii ugu horeeyay ee Geeska Afrika. ururkan ayaa waxa ku mideysan dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Kenya, Uganda, Djibouti, Eritrea, Somaliland, Suudaan iyo South Sudan. waliba qaasatan aanay Somaliland la aqoonsan ururka si rasmi ah ugu jireen.